BBC-da ayaa haweeneydan waxay u direen guriga Andrew Tate si ay waraysi uga soo qaado. You have said you're the most dangerous man in the world. I've said I'm the most dangerous man in the world. Intimate parts belong to her male partner. insha Allah mawduucan marka waxaan iskula fiirineynaa waraysigaas oo ahaa mid aad iyo aad u kulul oo waliba BBC-da dhankeeda ay kasoo daayeen muuqaal gaarayo 12 daqiiqo oo Andrew Tate dhankiisa uu kasoo daayay muuqaalkii oo raw ah aan waxba laga jarin iyo waliba fariin uu maalmo kadib u soo raacay idaacadda BBC-da iyo sidoo kale idaacadaha kale ee la halmaala ee galbeedka isagoona waliba shuruud cad hor dhigay idaacaddii kale ee galbeed ah oo rabto inay waraysi ka qaado in ilaa ay kasoo buuxshaan shuruudaasi uunan siin doonin waqti kale bal soo dhawaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نصعب شرفت بدن سودو هذا مركز لك سودو هذا مقال كله ولا الكي صاحب كنا اسمه سي channel سيدو كله فيسبوك بيج كا هوسو برو مركز له وحنقول لكم مثلا تداوشون مقال كنا داونيسو إيو وقتي قاعدكم بحنيسو. ترانسفير جالاكسي وشركة حوالات أو شقيسو هاب ديجيتال وولي بفضوض أو سيدو كلنا سمارت تاسو مركزي كديجان إن أذن أباهنين إن حفيز تكتوسي على عجوج درستو وكلية مركزي وكوف فلان هاي كمبيوتر كاجا أما تلفون كاجا. أندريو تيت مرر بدن أيك هذا muuqaalo kala duwanna waan ka soo sameynay xaaladiisa ugu dambeysay sida ay ahaydna kulay waxa uu ku sugan yahay gurigiisa ku yaala caasimadda waddanka Romania ee Bucharest isagoo ahna markaa xabsi guri macnaha qof guriga aan ka bixi karin si kastoo ahaato markii uu ka soo baxay xabsigii waxa markaasi uu ka soo fiicnaaday muuqaal ahaan diiftii xabsiga ee ka muuqatay balse sidiisa kale mowqif ahaan go'aan ahaan waxa uu aaminsanaa iyo doodiisa ama hadalkiisa weli halkiisa ayuu taagan yahay ama uuba ka sii adkaaday sidaan hordhac ku soo sheegnayba marka BBC-da oo muuqaalkan maalmo ka hor soo daayay ayaa waxay ka soo dhigeen 12 daqiiqo ayagoo welibana ku soo dadaalay si walba markaasi ay ugu muuqan lahaayeen inay muranka ama dooda ay la qaybsadeen Andrew Tate balse marka aad u fiiriso dhanka commentiyada in ka badan 70,000 oo qofood oo comment ka bixiyay waxaad arkaysaa marka inta badan dadka aad inay u taageersan yihiin hadalka ama dooda Andrew Tate walibana mar walba waxaad moodaa inay sii badanayaan taageeradiisa waraysigan ayaa marka waxa uu ku bilaabanayaa in haweeneydan ay ula soo baxdo su'aalo ay leedahay mar walba waxaas ayaa lagu eedeeyaa in dambigan aad samaysay inaad ku lug leedahay in ma aragtay haweenaad ka ganacsato in sidoo kale aad ku lug leedahay in dhalinyarada aad madaxa ka gasho macnaha aad marin habaabiso intaas maxaad uga jawaabaysaa isagana mar walba jawaabtiisa way caddahay oo wuxuu leeyahay aniga waan hubaa inaan dambi lahayn ilaa ay haddana wax cadeyn aan lagu helin 6 bilood oo arintiisa laga daba wareegayo sidoo kalena waxaan hubaa in aanan waxba la igu heli doonin haddii adiga aad tahay qof aaminsan aniga inaan dambiilahay ama aan wax sameeyay soo samay baaritaan dheer oo kaliya hala imaanin markaas warqado yaryar oo aad ka soo qoratay ama aad ka soo xigatay muuqaalada dheeraayo wax yar laga soo jaray iyo sidoo kale idaacadihii ka horeeyay ama dadka aniga aaminsan inaan adduunka dhibaato ku ahay waxyaabihii ay iga qoreen ama ay iga diyaarsheen wali isla waraysigan ku jirnay waraysiga oo marba dhinacyo taabanayay marba si u kululaanayay ayaana hadalkiisa waxa uu sii raacshay oo yiri Ingiriiska oo ah markaa meesha ay BBC-da ka socoto oo uu ku sheegay inuu yahay wadan sii dhacayo ama fashilmay haday noqoto rabshadaha qalalaasada dilalka mindiyaha ama dhaawacyada intaas oo dhan wuxuu yiri idaacadahooda ma arkaan oo waxay arkaan aniga oo muddo sanad ka hor aan internetka soo galay aan noqday qof dhalinyarada influencer ku noqday oo anigana fariintayda markaasi ay tahay in aan ku baraarujiyo ragga inay noqdaan kuwa toosan adag jir ahaan dhisan mas'uuliyad qaadi karo maskax ahaan iyo sidoo kale dhaqaale ahaanba diyaarsan meelaha marka uu hadlay ee haweeneyda ka soo dhaxgalayso ama waxyaabaha ay su'aal ahaan u weydiinayso waxa kamid ah sidan adiga waxa tahay qof dhalinyarada marin habaabiya oo mar walbana tuso gawaarida qaaliga sida Lamborghini Bugatti waxyaabahaas oo markaasi ku qotonta dumar nacayb markaas ayuu intuu su'aal ku celiyo wuxuu leeyahay sidee inaan haysto sigaar iyo Bugatti ay markaa ugu lamaan tahay dumar nacayb. Do you believe I'm the most dangerous man in the world, Lucy? I'm not answering your questions. Well then we need to change the dynamic of this interview because, and I'll make this clear. halka ay xiisaha ka yeelanaysa arrinta waatan wuxuu leeyahay horta marka hore mid aan ku cadeeyo halkan waa gurigeyga anigana waxaan ku ogolaaday in gurigeyga aad waraysi iga qaado oo asxaan ayaan ku sameeyay ima fariisan kartid kursiga awooda aniga BBC-da ixtiraam uma hayo
adigana kuma aqaano ani adiga isku mid aan nahay wax awood aan isdheernahay ma jirto waxaan wadanahay muwaadiniinta adduunka haddii aad isku daydo ama aad ila soo fariisato in adiga meeshan aad awood ku leedahay haba yaraatee ma jiraan wax aniga aad igu leedahay oo dayn ama qasab ah maray haddana weli ku soo meeraysatay dhanka iyo dumarna caybka ay ku tirayso ama ay ku sheegayso inuu ninkan haysto ayaa wuxuu leeyahay tusaale ahaan haddii ay wax dhacaan ama gurigan ay dad soo galaan ama ay dhibaato timaado anigoo hadda aanan ku aqoonin waxaan mas-uuliyad iska saarayaa in adiga aan ku difaaco ku protect gareeyo sababtoo ah aniga ayaa aaminsan in mas-uuliyadayda ay tahay fikradaha aniga aan aaminsanahayna waa intaas iyo wax la mid ah marka si kastay ahaato waraysigaasi oo dheeraa oo balse aanan ku jirin waxyaabo cusub oo mar walbana ay yihiin su-aalihii la weydiin jiray ama dadkan oo kale oo fikradahan aaminsan su-aalaha mar walba ay weydiin jireen ayaa ugu dambeyn waxa uu ku dhammaanayaa in sidiisa uu ku istaago iyo weliba haweeneydii oo uu ka muuqdo xanaaq in ay meesha ka istaagto ayadiiyo staafkeeda ama dadkii la socday oo la shaqaynayana alaabtooda ay meesha ka duuduubtaan maalmo kadib inta uu waraysigii hawada soo galay ayaa Andrew Tate waxa uu hawada usoo mariyay ama uu soo duubay muuqaalkan isagoo markaasna si toos ah fariin ugu diray idaacadda BBC-da ama CNN ama kuwa kale ee la halmaala oo isagana markaasi ugu yeero adduunka Matrixka wuxuuna yiri kadib 6 bilood oo ay ka soo wareegatay inta la igu soo oogay dacwadan bilo aan xabsi ku soo qaatay kadib aan soo baxay oo aan gurigeyga joogo waxaan islahaa in BBC-da ay ka caqli badnaan doonaan sidaan marka ay noqoto waraysiga aan u ogolaaday inaan siiyo su'aalaha ay i weydiin lahaayeen halkii ay la imaan lahaayeen su'aalo dadka hadda muhiim u ah oo ay rabaan inay iga ogaadaan xaaladayda meesha ay marayso xabsiga siduu ahaa waxa aan damacsanahay fikirkayga waxa iska bedelay iyo waxyaabahaasi waxay marka la yimaadeen su'aalihii da'daha ama duqoobay oo mar walbana markaasi loo soo hoosgalayay weerarka aniga la igu yahay ama la rabo in la igu tiro wax aniga aanan samaynin fariinteeda mar walba waa hal waxaan aaminsanahay in aan ahay qof mas'uuliyad ay ka saaran tahay ka qof oo dad badan ay ku xiran yihiin ama codkiisu u gaar ahaan in dhalinyarada aan badbaadsho aan ka badbaadsho waxyaabaha ayaga ay ku riixayaan ka qof soo arkay faqiirtanimo iyo taajirnimo murugo iyo farxad waxaan helay in farxadda ninka ay ku jirto in qofka uu iska shaqeeyo jir ahaan dhaqaale ahaan inuu raadiyo nolol u qalanto in lagu noolaado iyo weliba inuu jacayl tuso dadka isaga u dhow rag iyo dumar waxay yihiinba aniga nafsad ahaantayda waqtigayga qiimo ayuu leeyahay kuma raaxaysto in mar walba aan waraysiyo idin siiyo dadka doqomo uma ahan sida aad jeclaan lahaydeen inay ahaadaan way fahmayaan wixii kaftan ah wixii run ah iyo wixii muhiim ah haddii aad rabtaan markaa in su'aalihii hore ama waxyaabihii hore oo mar walba la iga dabooday oo aad rabtaan wax kaleba inaadan u gudbin oo intaas kaliya idin muuqato dadka waxaas way ka daaleen muhiimna uma ahan sidoo kale xitaa idaacadahan xilligan hadda la joogo dad fiirsado ma jiraan anigu wuxuu yiri waxaan leeyahay urur la yiraahdo Tate Pledge kaasoo aad ka heli karto website-kayga sanadkii waxaan ku bixiyaa lacag gaarayso 25 milyan taasoo welibana jeebkayga ka baxdo oo cid kaloo fandhigaraysa ama wax ka bixisa aynay jirin lacagtaas oo welibana lagu tabaruco ama wax lagu taro cunto lagu siiyo caruur badan oo caalamka ka mid ah haddii ay tahay dhulgariirkii Turki ka dhacay Afghanistan Afrika ama meelo kale intaasoo dhan wuxuu yiri ma arkaan oo kaliya dadkani waxa u muuqdo waxyaabo kale haddaba ugu dambeyn wuxuu yiri si aadan su'aalahan dambe aadan ila imaanina anigana waqtigeyga aan isaga khasaarinin idaacaddii rabto hadda kadib in ay waraysiga qaado waxa rabtiin keensada su'aalaha rabtiin la imaada laakiin waxaan hordhigayaa shuruudan taasoo ah in saacadii ama inta aan waraysiga bixinayo aad bixisaan lacag gaarayso $50,000 $50,000. That is what it is going to cost you to speak to me. taasoo markaasi si toos ah aan ugu dari doono lacagaha aan ugu deeqo dadka dhibaataysan ama aniga aan ku sadaqaysto sidoo kale waxay ii soo raacinaysaa inuu yiri box oo ay ka buuxdo shukulaato si aan u cuno inta aan waraysiga bixinayo sababtoo ah energy ayaa iiga baxayo And a box of chocolates. ugu dambeyn markaa Tate oo hadalkiisaan soo gabagabeynayno ayaa waxa ka mid ahaa hadal aad u qurux badan oo ah xalka ugu fiican waxaan aaminsanahay
inuu yahay xalka ilaah. Dhammaantiin waa mahadsantiin inta muuqaalkan aad daawateen. Insha Allah inta muuqaal kale aan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabad ahaada.